kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo daafaha dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka Cadalool. barnaamijka Cadalool waa barnaamij toddobaadle oo toddobaad kasta ka daawan doontaan shaashada muuqbaahiyaha araga fog ee Somali News TV. qodobadan cawaydu ku hayna barnaamijka Cadalool waxaa ka mid ah Maxamed Muuse Jaamac oo ay bulshadu u ogtahay Maxamed Haldoor waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaalada Hargeysa. Maxamed 2008 ayaa uu naafoobay waxaanu galay xaalad ka duwan xaaladihii nololeed ee hore. balse taasi kama ay hor istaagin higsigii himilooyinkiisa nololeed Maxamed. dhawaan ayaa barnaamijka Cadalool iyo muuqbaahiyaha araga fog ee Somali News TV ku booqdeen Maxamed guriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa. waxaan la yeelanay waraysi sida tan u dhacay. Maxamed Muuse Jaamac oo ay bulshadu u ogtahay Maxamed Haldoor waa wiil dhalinyaro ah oo ku dhaqan magaalada Hargeysa. waqti hadda laga joogo muddo 9 sano ah oo ku beegan 2008 ayaa uu Maxamed naafo noqday wuxuuna galay xaalad ka duwan xaaladii nololeed ee hore. taasi kama ay hor istaagin higsiga iyo himilooyinkiisa nololeed. galabta ayaan Maxamed ku booqanay guriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa. waxaana la qaatay waqti fiican oo kula sheekaystay kana qaaday waraysi. Maxamed waa qof farxad iyo aftahnimo Rabbi ku galaday oo aanad kaftankiisa iyo sheekadiisa aanad kullaba ka xiisa goyninin. in badan oo daawadayaasha ka mid ah ayaa isweydiinaysa waa kuma Maxamed Muuse Jaamac Maxamed Haldoor. aad baad u mahadsantahay walaal Mubaarig. aad baan kaaga mahadnaqayaa inaan barnaamijkaagan marti kuugu noqdo. magacaygu waa Maxamed Muuse Jaamac Maxamed Haldoor. waxaan ku dhashay magaalada Ceergaabo sanadkii 1995 halkaas baan ku dhashay oo aan waxbarashadeeda kusoo qaatay dugsiga hoose iyo malcamad quraanka ilaa aan ka gaadhay dugsiga dhexe klaaska 5aad. waxaan u soo wareegay magaalada Hargeysa sanadkii 2008 halkaasi si aan waxbarashadeeda uga sii wato. markaan halkaa waxaan ku biiray iskuul la yiraahdo Quraan Boarding School oo ku yaala bariga magaalada Hargeysa. ka bacdi markii aan 9 bilood dhiganayay ayaan xanuunsaday oo aan galay xaalad naafanimo oo aan ahaa markii hore qof caadi ah oo soconaya sida dadka caadiga ah. Maxamed oo hadii bal iga waranto sidii bal aad ku naafoodo kale. walaal habeenada kamid baan xanuunsaday anoo iskuulkii hoyga ah dhiganaya sariirteeda jiifo baan aad u xanuunsaday. ka bacdi muddan xanuunsanayay magaalada Hargeysa ayaan waxaan ka soo fasax qaatay iskuulkii. ka bacdi dhakhtarkan la xiriiray adugkii inuu ii soo qoray kumaan ladnaan oo ku sii xanuunsaday muddo wiiga baan sii xanuunsanayay xaafadda aan magaalada Hargeysa ka noolaa ku sii xanuunsanayay. ka bacdi habeen baan aad u xanuunsaday. ka bacdi waxa dhacday inaan aroortii kici kari waayo oo aan ka baxo noloshii hore ee caadiga ahayd. xubimaha jidhkayga oo dhan way dhaqaaqi waayeen. isbedel cusub baan isku arkay oo aan ka duwan kii hore aan ku sugnaa. saas baan ku naafoobay walaal. Maxamed waxaad iga warantaa xaaladaadii hore iyo waqtiga naafatnimada isbedel caynkee dareemaysay? horta waa arrin walaal aad u adag marka adigoo ah qof soconaya oo 6 qabo aad ka baxday si degdeg ah noloshaadii hore aad ilaa muddo 12 sano aan ku soo noolaa. alxamdulillah taa waan aaminsanaa oo dee qof islaam baan ahaa qadarka Ilaahay marna kama hor imaanayo. marka noloshayda haddana waan ku faraxsanahay. taydii horena Ilaahay baan ugu mahadnaqayaa in aan ahaa qof soconaya oo waqtigii soo qaatay socodkiisa haddana naafa. Maxamed caqabadaha ugu waaweyn ee ka hor yimid inta naafada noqotay maxaad nooga xus karaysaa? walaal horta nolosha naafanimada iyo tacaadiga oo dhan boo iska wada caqabad. adduunkan dib un baa loo yimi sababta oo ah sidii ay caafimaadku iyo cudurku laba u yihiin bay dhibta iyo wanaaguna ay laba u yihiin. marka markii aan soconayay nin dhalinyaro ah baan ahaa oo soconaya mar waxa la yiri mar aad tamar haysid oo aan talahayn baa jirta iyo mar aad talahaysid oo tamar hayn. marka markii aan socon jiray iyo haddaan maskax badanahay haddaan wax kala fahmaya haddaan wax badan ogahay. marka caqabado way jiraan hadday noqoto dee awal waxbarashaan watay iskuul baan dhiganayay. ka bacdi hadda ma tegi karo sababtoo ah waxaa jirta ma dhigan karo iskuulkii sida qof caadi oo kale aan u tegi lahaa ma tegi karo. tusaale oo kale marka aan doonayo adiga Mubaarig ahaan waxaad doonaysaa inaad koobiyaa soo qaadatid cidna kama dalbanaysid toos baad doonanaysaa. marka anigu markaan doonayo waa in qof uu ii keeno
taas waa wax iga maqan oo aan tabayo iyo lafteedu waa caqabad caqabado badan way jiraan oo nolosha naafinimada iyo tan adduunkaaba way jirtaa walaal waxaad sidaadan arkaynaba dee higsigaagii himilooyinkaagii naafinimadu kamay hor istaageen halka gata heerkeed nolosha jeclaan lahayd inaad ka gaadho maxmedow walaal horta wax kastoo wanaaga oo uu qof gaadhay waan jeclahay inaan gaadho waxaan jeclahay inaan nolosheeda horumar ballaaran ka sameeyo sababtoo ah igama joojinaysa inaan naafo ahay waayo lugaha iyo lixaadka lagama aha naafonimo halka naafada waa laga yahay waa qalbiga iyo maskaxda marka hami weyn baa igu jira wuuna badan yahay insha allah waxaan rajaynayaa in ilaahay uu igu guulayo walaal sidoo kale anaguna guul baanu ku rajaynaa garabkaagana joognaa maxamedow waxaa jira dhalinyaro fara badan oo iyaguna naafo ah maxaad u jeedin lahayd iga waxaan u jeedin lahaa walaal horta naafonimadu waa wax idiin qornaa haddaan naafowdaan ilaahay xanuunka iyo caafimaadkaba isagaa keena haddaad dadaashaan oo ku samirtaan naafonimada insha allah waxaan rajaynayaa inaad guul gaadhi doontaan marka hays dhiganina un baan leeyahay hore u socda dibna ha u noqonina maxamed imika waad shaqaysaa waxaad ka shaqaysataa mid kamid a t v-da sidaan hore usoo xusnay bal shaqooyinkaaba qabato adoo nooga warramaya iyo xubintaad t v-ga u joogto walaal waxaan ahay barnaamij soo saare warkana waan galaa marmar qaarkoodna reporter baan noqdaa suuqa warka ka doonaa marka barnaamij baan leeyahay ii gaara oo aan anigu waxaan doonaan kusoo deystaa badanaa laakiin waxaan ku dhiirigeliyaa dhalinta naafada ah ee anoo kale ah si ay horumar u samayn lahaayeen warkana maalinta salaasada habeennimadan galaa waa kaas maxamed waxaad sheegtay inaad warka doonto balbixista warka iyo wardoonista bal looga war sidaad uga howlgashaa marka aan doonayo xaafadayda ayuu gaarigu igu yimaadaa gaariga shaqada kabacdi marka aan waxaan tagaa meel aan sii ogahay oon habeennimadii oo kale sii qorshaystay munaasabad oo kale aan warka kasoo tabinayo kabacdi sida weliyaasha caadiga oo kale u badan doonaa waxba kagama duwanay waxaad haddii aan su-aal kaa weydiiyo intii aad kusoo jirtay saxaafadda weliba qaybta wardoonista wararkii kuugu la yaabka badnaa wax ku farxad geliyo wax kaa nixiyaba ma jiraan way jiraan walaal mar kasta waad arkaysaa wax kaa nixiya wax kaa farxiya marka maalin baa jirtay aan kasoo warramayay maalinta naafada adduunka oo aan tv-ga u qaabilsanaa star kabacdi waxaa dhacday facebookna waan soo dhigay sheekadaas ina yar baa la keenay meesha oo naafo ah oo aad u diifaysan oo dhib badani ay ka muuqato kabacdi waxaa waday aabaheed saan jeclahay haddaanan khaldanayn kabacdi waxaa jirta marka dadka naafada waxaa loo sameeyaa xaflado iyagoo lagu xusayo maalinta naafada adduunka iyagoo u baahnaa in halkii wax loo qaybin lahaa dulbaana laga dultunto marka aad baan ii damaqday inan taayare halkay u baahnayd in dhar loo iibiyo oo halkay u baahnayd in baaskiil la siiyo ha xafladii heese iyo lagu qaato iyo khudbado ay madaxdu ka jeedinayso taas bay ahayd walaal marka intaan ka nimaadno madaxda maxaad u soo jeedin lahayd inay wax u qabtaan ama ay kaalin ka siiyaan dadka naafada ah oo adiga galdaloolo aad ku muuqatood ma jirtaa ha way jirtaa walaal wax badan oon jecelahay in la bedelo baa jirta madaxda waxaan leeyahay xisbiyada iyo ururada siyaasadda dadku iyagaa ku biira dadka naafanimada ninama dooran inuu ku biiro ee ilaahay baa u qoray dadkan waa laydin weydiinayaa if iyo aakhiraba idinkaa aakhiro ilahay baa idinkala xisaabtamaya weliba kuwan caadiga ah way kasii liitaan oo in aada loo daneeyo oo hadday noqoto iminka tusaale ahaan madaxweynaha somalilan wuxuu dhaqan geliyay in dadka naafada ah digreeto uu kusoo saaray in jaranjarta gebigeedaba la baabi'iyo oo meel ay mari karaan la sameeyo wax ka hirgalay ma jiraan marka waxaan leeyahay wasiir kasta iyo nin kastoo madax ka ah xubin dowladeed ama hay-ad dowladeed waa inuu ku daro dadka naafada ah waa in la shaqaalaysiiyo waa in dadka naafada ah somalilan ku nool ay helaan xaqa caadiga ah uu helayo waa inay helaan walaal ugu dambeyn baaq aad u jeedin lahayd dadka bulshada ku daawanaysa daawadayaashaada ah muxuu noqonaya horta bulshada halkan dhammaantood waan ka salaamaya baaqayga uun wuxuu ku soo aruurayaa naafanimada
iyo naafada iyo xabaalahaba waa lagu soo biiraa marka walaal taa waa inaa ku baraarujisnaataan dadka naafada waa inaa u aragtaan sida idinka oo kale marka ay meel idinku yimaadaan waa inaa soo dhaweysaan niyadda u dhistaan ha odhanina waa hebelkii naafada ahaa magacyada xunxun ka daaya ha ugu yeedhinina dad badan baa jira oo fiican oo baqanaya oo guryaha jooga oo niyadjab haysto oo is odhan karin waxbaa noqon kartaan dadka naafada dhiirigeliya oo soo dhaweeya oo markay idin yimaadaan taas baan kaga baxaya walaal aadna waad u mahadsantahay mubaarak